haddaba Soomaalida oo iyada ku dhaqanta dhaqamo kala duwan oo diinta Islaamka ka fog iyadoo qabaa'ilo la degan ku tilmaamta kuwa ka hooseeya kuwa kale oo aysan isgursanin dhaqanna aysan wadaagin ayaa haddana qabaa'ilada Soomaaliyeed ee iyagu degan dhulka Soomaaliya ay u kala degan yihiin qabiilo iyaga dhexdoodana iska guursada. haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo iyaga qaybahooda kala duwan ayaa waxaa saameyn ku yeelatay dhaqankaasi foosha xun ay Soomaalidu ay leeyihiin. sidaa ay tahayna fanaaniinta way jibiyeen darbigaasi oo way ka gudbeen xeyndaabka ah in qabiilka lagusan guursanin. haddaba maanta waxaynu barnaamijka kusoo qaadanaynaa fanaaniin Soomaaliyeed oo iyagu kasoo jeeda beesha Jareerweyne oo iyaga qaba fanaaniin habla ah oo kasoo jeeda qabiilada kale oo iyagu isku sheega inay yihiin qabiilada waaweynka ah. haddaba fanaaniinta beesha Jareerweyne oo qaba fanaaniinta qabiilada kale ah ayaa iyagu aad u badan. maantana waxaynu kasoo qaadanaynaa qayb ka mid ah fanaaniintaasi. haddaba waxaynu ka bilaabaynaa fanaanka weyn ee codka dahabiga leh, mulaxinkii weynay, musishinkii, macalinkii Axmed Nuur Jaango. Axmed Nuur Jaango isagoo kasoo jeeda magaalada Buulaburde ayaa wuxuu ahaa macalimiinta ugu waaweynaa muusikada ee laxanka Soomaalida. fanaan codkiisa hawada iyo samawaadka ka lalayo. Axmed Nuur Jaango ayaa isagu waxa uu kamid ah kooxdii horseed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidaas oo ay tahayna Jaango wuxuu laxamada iyo weliba muusika u sameynayay kooxaha kala duwan ee ugu waaweyn kooxihii fanka Soomaalida. haddaba fanaankaasi ayaa isagu waxa uu kasoo jeedaa beesha Jareerweyne. waxaa u dhaxday fanaanad caan ah oo iyadu heesa kala duwan leh kana mid ahayd kooxdii horseed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sahre Ileeye ayaa xaaskiisa ama afadiisa ahayd fanaanka weyn ee Jaango. aniguba waxaan ka baynacdada dheer u soo galay rasumaal adduunyo jacaylkaygii raarna uga sameeya jacaylkaygii raarna uga sameeya ruux isii wariba gabay dulabaad marnaashi raliga nuko raliga nuko xaaska Axmed Nuur Jaango ayaa iyadu waxa ay kasoo jeedaa qabiilka Isaaqa la yiraahdo. waxaan u gudbaynaa fanaanka codka dahabiga leh ee Maxamed Axmed Qoomaal. Maxamed Axmed Qoomaal ayaa isagu waxa uu kamid ah fanaaniintii bilowgii 80-yadii fanka Soomaalida soo galay. fanaan cod dahabi leh welibana kamid ah kooxihii kala duwanaa ee fanka Soomaalida. Maxamed Axmed Qoomaal ayaa isagu waxa uu kasoo jeedaa beesha Jareerweyne. Maxamed Axmed Qoomaal oo ah fanaan heesa kala duwan qaaday kana mid ah kooxdii Durdur ayaa isagu waxa uu sidoo kale qabaa fanaanad kasoo jeeda beesha Ciise. fanaanadaas oo lagu magacaabo Faamudume Axmed Dhimbal Allah u naxariiste ayaa Maxamed Axmed Qoomaal u dhaxday. fanaanka kale ee Daa'uud Cali Masxaf oo kamid ah fanaaniinta mulaxinka iyo musishinka ugu waaweyn heesaa cod macaana ahaa ayaa isagu waxa sidoo kale kasoo jeedaa beesha Jareerweyne. Daa'uud Cali Masxaf oo kasoo jeeda magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa isagu waxa uu ahaa musishin laxamiiste iyo weliba heesaa codkiisa iyo laxankiisa laga daba dhaco. muusikada garaacista waxa uu ku ahaa macalin loogaga dambeeyo oo fanaan walba iyo qof walba waxay jecleed fanaan walba inuu isaga muusig u tumo. Daa'uud Cali Masxaf ayaa qabay gabadh iyadana oo iyadu reer Soomaaliland ahayd. markaadigu uu ciyo daakiraada subaxdii duhurkii habeenkii duulaa
sidaan ahay waxaa lay dulkeenaa degmadaad ku nooshay naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso dalo aynu joogne udoonayaayo anigana daraada indhihii daale naftaa ku diyaare dadka taan ka doortay cawaan dalugelaynaa. sidoo kale fanaanka lagu magacaabo Sidi Cali Winki oo kasoo jeeda beesha Jareewe ayaa isagu waxa uu qabaa gabadh Ciise ah. fanaankaasi ayaa isagu waxa uu yahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda muusikada iyo laxanka looga dambeeyo fanaan cod dahabi leh ee qoys faneedna kasoo jeeda. Sidi Cali Winki ayaa isagu xaaskiisa waxay tahay gabadh Ciise ah oo mamaasana ah. haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed iyo kuwa beesha Jareewe kasoo jeeda ee qaba hablaha qabaa'ilada kale ayaa iyagu aad u badan. maanta waxaynu soo qaadanay qaybtii koowaad oo fanaaniintaasi ka mid ah. intaynu dib dambe barnaamij noocaan ah ugu kulmi doono amaana Allah.